barnaamijkeena maanta runtii wuxuu noqon doonaa barnaamijkii ugu dheeraa maalin ku dheeraa waxayna hor yaalla markaan eegno haye sababtoo ah waqti badan waan gelnay daraasada waan sameynay waa saase waaya ha ma bilowna waa saas ma ogsuga lagu sugaya waaya haye bismillah haye waxaan ka bilaabi doonaa yaasino waa saas mooshinka cusub ee baarlamaanka ka jira Soomaaliya federaalka Soomaaliya haye ka dhanka ah ha maxamed sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka laftiisa ha bal waxa ka jira noo sheeg haye maxaa ka jira ayaan eegi doonaa dad badan baa garan la waxa dhabta ee meesha ka jira haye ku wareeray ha inkastoo anigu aanan cali ahaan siyaasi ahayn ha oo nin iska miskiinahay haddana waxaan eegi doonaa bal galdalooyinka laga soo galay iyo ujeedada dhabta ee meesha laga leeyahay waa saase waayahay mana aha mooshinkii ugu horreeyay Soomaaliya federaalkeedu ay sameysay ama dowladda sameysay waa wax soo jiri jiray laakiin kani wuxuu qabsaday ra'iisul baarlamaanka gudoomiyaha laftiisa buu la galay ayuu la galay haye maxaa xiriir oo ka dhaxeeya shirkadda DB World markii uu ka soo noqday ra'iisul wasaaruhu iyo mooshinkan maxaa u dhaxeeyay ama ka dhaxeeya baarlamaanka uu codeeyay DB World inaan soo galin badaha Soomaaliya iyo in la rido oo mooshin laga keeno gudoomiyaha haye bal horta gudoomiyaha maxamed sheekh Cusmaan afkiisa aynu ka dhowrno bal waxa uu leeyahay ra'yi baan leenahay waa doodnaa cod baan ku kala baxnaa waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee Soomaaliya oo madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshiinadan ay daba joogto oo haddii alla ku ruuxay ujeedadan ay tahay in baarlamaankaasi awsan noqonin mid shaqeeya waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka mabda'a iyo ammaanada noloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani ujeedada ma aha Jawaari meesha laga leexiyay waa garnay okay waxaan geli doonaa marka isagu sidaas u hadlay wuxuu hadalkiisa ku daray waraaqa la damcay in laga saxiixo ayaan diiday warqada la rabay in laga saxiixo diiday ayaan diiday haye waa self interest waa u gooniya ra'iisul wasaaraha haye laakiinse in rag markuu ishayo waxba lama kala dhowrsadeen waa saas bulshadii golaha shacabku wuxuu wakiil ka yahay bulshadii uu soo bandhigin gudoomiyuhu waxa dhabta ah ee uu saxiix waayay ma in layna iibsadaa buu saxiix waayay haye ma in layna qabsado ayuu saxiix waayay haye ma in Ethiopia ay soo gashay ninkii inoo sharxin laakiin shaki ma gelin على الجزائر in awrkiisa uu ku kacsanayna waa suurtagal marka ugu horeysa waxaan leenahay mooshinka horta waxa watay ra'iisul wasaare Xasan على خير باوتيبه ayaa watay haye muxuu ninka ku galay haye arrimaha markaan dib u eego dib u baaray waxa weeye hore ayaa horta Jawaari iyo xildhibaano kamid ah baarlamaanku ay u wadwadeen in ra'iisul wasaaraha laftiisa laga qaado jagada haye taasoo uu ku ciil qabay ayaa baarlamaankii fasax galeen haye soo noqodkiina DB World hawshi ayaa hore laga ayaa gashay haye ra'iisul wasaar khayr horta ka aarsado Jawaari wuu rabay xarish buu hayay hal mar sabaxadiis haye laakiin maxaa ku lamaana xagu ugu soo gabaday haye marka ugu horeysa Xasan Axmed Khayre daacad kama ahayn heshiiskii ay Somaliland iyo wada galeen iyo Ethiopia isdhexgalsoodka iyo UAE ee uu tagay isaguna meesha la yiraahdo Abu Dhabi horta wuu ka been sheegay sababta uu tagay Abu Dhabi waxa lagu yeeray washey kar waay haye markuu soo noqdayna kama hadlin Abu Dhabi markuu xamar yimid ayuu yiri shirka anagu waxaan u aragnaa in la soo mariyo si dastuuriya wadada saxda war ilaa anaga wax ragn haye waan diidanahay mana yeelna ma oran haye waaya wuxuu u shaqeynayaa ninka la Xasan Cali Khayre waa double agent wax la fahmi waay shirkadana uu ka u shaqeynayaa xaggan Soomaaliya uu shaqeynayaa haye marka Jawaari wuxuu kala hor dhac ku diiday isagoo cidna la tashan ayaa baarlamaankii oo caad fadaysan marka arkeen in badahoodii la qaadanayo ay bal ka aanu codayno no un beedaan DB ma doonayno waska qaatariyo haye dabeetana imaaraadkii baa hadlay iyaguna waxay dhaaheen kuwa meesha ku shira baarlamaanka anagu hadalkooda u joojinayno ma wana qaan kuwa dabeetana muuse biixbe diyaaradu soo direeno
ay koolkooliyeenoo ay la shireen oo ay yidhahdeen inagu Soomaaliya uba joojimina idinka intaasoo sannadood iskiin madax bannaanaa oo laydin aamini karaa marka taasina waxay ku noqotay waqcad ama dhingad lagu dhuftay federaalka marka Xasan Cali Khayre wuxuu ka carisan yahay baarlamaanku inay isugaan intaanu ka dhacayno annaga UAE oo maxaad ku kala dhacaysaan markaa in ay intaasoo milyan ay nasiyaan marka berbera Xasan Cali Khayre waxba UKIS ku qarin raallikay waa ogyahay waxaan boosaaso weliga ma soo qaadin meel alla wax ka socda laba raalli mid cusub imika baraawe uu wado Sharif Xasan raalli bukay haye intaasoo dhan raalli bukay waayahay waxa gartan iskale oo anigu aan siinaya gartan Jawaari waa saxsan ayaa saxsan haye sifa sharciya looma soo marinba haye inkastoo aan ku dhaliilaya Jawaari inay jirto wax uu qarinayo oo isagii Xasan Cali Khayre ay ka wada hadleen oo isku diideen waxaasna waa danta ummadda Soomaaliyeed ma hadan iyagu maartay si gooni waa cajaayib haye Soomaaliya baa kala iibsanaya Soomaaliya waa wareeriyay Xasan Cali Khayre waxa ka muuqda intii uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya fudayd ziyaada ummadba xagga isku qaaday marba meel isku qaada wuxuu ka tirsan yahay isaga laftiisu gaaskan iyo waxaan la qodanay shidaalada qayb buu ka yahay oo Some Oil Company ayuu de share ku leeyahay $3 million ra'iisul wasaaruhu cajaayib haye waa dhibaatay 1% ay noqonaysaa haye marka nin business ku jira weeye haye oo ilaalinaya businesska interestigiisa iyo interestka shirkadaha haye waxa jira hadaba haye dad aan waxba kala ogeyn haye oo xildhibaana oo iska jooga iyagu guriga ka dhista oo ciyaalkooda ka biisha iskuul ugu dira waxa la yiraahdaa mooshin hadduu inaadeerka yahay cafin maayo oo jaanise soo la cafiya hadduu yahay odaygii meesha haystay cafin maayo waraqiisu muqaadana ama sax salaama khaldan dadka ilaa maalintii ay bilaabantay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ilaa hadda mooshin uu waraaq inta la u sitaa waxa kamid wasiirka sportiga ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye waa number 1 waa baarlamaanka waa gabadhii riday Saacid ee waraqa u geysay ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya iyada riday waa ka horgeysay ninkii kale ee hadii la ku run yahay ra'iisul wasaaraha isaguna isna waa u geysay Saacid ka dambeeyay Abdiwali haye isagana iyadu number 1 waxay ka tahay in aan inaba mooshin la joojinba oo kaga dhigantahay ay kaga dhigantahay haye way meesha qurada hantida ishu ay ka soo gasho waa halkaas bal Khadiija mooshin aanu daawano iyadoo ka hadlaysa arrinta Jawaari 184 mooshinka hadduu gaari waayo Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waa gudoomiyihii golaha shacabka hadduu gaaro 3 meelood labana 15 bari gudahood golaha shacabku wuxuu soo dooranayaa gudoomiye kale waa wax cad kama filaynin wixii uu ku hadlay doraad oo ahaa miiskana la igaga noqday 6 bilood kadibna la igama sheegi karo kama filaynin wixii uu xalay yiri hal xabba ku soo darsada kama filaynin meel ka dhacay ku tahay aqoontiis وخذي شو وربته موشك وربته aad buu u xisaasan hadda koor waxa jiray nin baarlamaankii Soomaaliya ayuu ka tirsanaa haye saddex xaas buu lahaa haye yaasiin haye marka gabadha yar u dambeysay ayaa maalin qabsatay waxa tiri inuu de labada dumar iga horeeba guriyaad u dhistay anu kiraan ku jira haye maxaa dhacay haye waana miiradii aad buu xisaanay haye marka wuxuu ku yiri anigu markasta aan ku jecelahay waxa weeye gabadha hore markii aan guriga u dhisay mooshin baan ka dhisay guriga mooshinka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ayaa isqabtay dabeetana hawshii guri baan ka samaystay gabadhii labaad ilaahay amarkii sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihii kale ayaa isqabteen mooshin guri kale waan ka dhisay haye iminka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isqaban la haye marka waa farmaajo iyo khayre guri ma doonaysaa ilaahay waxaad ka baridaa in ilaahay mooshinka
guriga warka waa banaanka way xildhibaanadan la dirsaday baa waa niman la ilaahayow mooshin oo kan isqa qabsigaas ka yaala maanta danta ummadda Soomaaliyeed kuma jirto in ay baarlamaankii khalkhal geliyaan oo askar ciidan u diraan oo ay ku amarku taaglayaan marka hay-adan sharci dejinta ama baarlamaanku iyo hay-adda fulintu ee madaxweyne xukuumadda ay ku jirto xukuumadda Axmed Xasan Cali Khayre waa kala jaad waa ka gidsantahay ma kala awood badna marka Xasan Cali Khayre imku bilaabay sanad baa ka soo wareegtay imku bilaabay rabshkii ugu horeeyay ee uu gelinayay xaaladda dowladda farmaajo waxaas imika ma dhacayaan waa dhacayaan farmaajina waa aniga u bixiyey Mr. Moge ma ogeyn waxa ilaa hadda socdo ma hadlayo ummadii kala saari maayo laga soo bilaabo ilaa qalbi dhagax wuxuu kale ma ogeyn shirkadda berbere iyo DBWS ma oga mooshinkan yarkan kulumba ordaya tan boosaas ma ogi hadda mooshinka xitaa ma oga koode mooshinkan hadda loo sheegay malaha marka de madaxweynihii ummadana waxa ma ogi ama inuu daah isku qariyo waa laga fiican waa inuu umadiisa la hadlo waa inuu baarlamaanka iyo hay'adahan fulinta uu kala qabto waa inuu dhexdhexaad waa odaygu ka yaabas inuu wadankii la badbaadiyaa had iyo jeer maxaa dumis loo raadsanaya la dumiyo maxaa loo raadsanaya waaye dowladda Xasan Cali Khayre واتا حكومة فرماتشي حسن على الخير سنة دي حوجا أي هدي شرت سنة دي بيل أما السنة دي لباب بلود سنة دي لباب بلود وحسوا كريسون فان وفان بلانت الدولة إحنا قبلنا إننا مسموس وان لدى قالنا كورشن كان دبلا كصبر ترانا عن قبل بانون هاي صوت ما تقرأ وركويس خبيت شرب أيام الغد قوس ما بس وجري قوس الغد نمان كاني السنة دي لبضاب بلوه هدي الله حسابتهم الله يوحسوا كل ما تشتو هذا الشيء جاي الدنيا 3 years دمبه إن يكسي جرا فان كاين يكسي جرا هي وحقادو جعلين عيال كيرر ميلها مركي وفودكم مريان إن مدح وصلاحان هالكاس صور كاسون قاطع صور أقوم بصو ما أنت صومري صور كذا إسلامي وين مدح كله بس عقبت كده ما اسمه اللي صور بكويك هذا وياه هي hawshan la isku hayay ee Soomaaliland iyo Soomaaliyada kale iyo Dubai iyo Ethiopia ee Xasan Cali Khayre uu leeyahay diidanahay Muuse Biixi iyo fuudiisina ay tageen meesha la yiraahdo Ishaq Abu Dhabi ama Dubai ba tageen waxa uu ingreeyay hawsha waxa ku guuleystay oo si fiican u guuleystay Soomaaliland aad baan ugu hambalyeynaa Soomaaliland in ay dowladda federaalka ay dhinac isaga turtay شوف عم بوري حدي شوف عم بصير هي موسى بيح اول وحو اركي جري نكن عرب كان دي بي ودا اسمها كا سنك دار نسليره مغيس سلمان بورتا نكاس باول اركي جري هي هذا لكن لانه كركب وين بدالي شيخ خليفه شيوخي هوين ايو قاعد وريك واتي هدي ظروفتنا اني جرتين موسى رجع اسمه اركان إيش دوادين دودي إثيوبيا أيا أيضنا سفيعان أسلوش وهذا ليس هذا رمش هشيس وسان وقلي يا وحنا قاعد كره سومال لامبال هشيس وسان وقلي يا وحنا قاعد كره أبو دبي وحلا هشيس وسان وقلي يا وحنا قاعد كره إنا لله ولو كنت تجيبش قولنا موشين بيكون هي العجيب بيكون مركا وقول for nothing حلقة أن dhalinyarada Soomaaliyeed ee yaasiin qurbaha ku dhalatay ama ku kortay ayaa waxa wararka Soomaaliyeed baxay inta dhageystay ay iyaguna dareenkoodii afkooda haba iska jijibnaaday hees baan ku saaraya raaba oo ay ku luqeynayaan oo ay leeyihiin markan ujeedada soo urno dalka Soomaaliba iskale imaaraad malaha taasoo ajaayib daawno iskale badaya iskale idaya iskale إمارات كماله دلكوا سومالي دلكوا سومالي دلكوا سومالي على كوا سومالي دلكيا إسكالة بديا إسكالة إديا إسكالة اسكت قدل كنا محل جهلي دايرتي دلكي جو هرت دلكيا إسكالة يا دفاعي دونه دلكيا إسكالة عدم كل شيء عجيب وحس هذا في عمود ودنيا كل شفتال عيالك ده ودنيا درينكودي من سوق وايه هي هل كان هي ترى نيو سومالي واتندقوا